soo dhawaada qaybtii afraad ee qisadii caan baxday ee Manafai waxaan ahay Farxaan Maxamed Jamaale. qaybahan ugu horeeya ee sheekada waxaan la socodsiinayay qoraaga Dr. Maxamed Daahir Afraan. Isaga ayaana idinku wareejinaya mar kale. Manafai xafadan weli waa sideedii luqluqadii isu wada ekaa iyo sarihii gaboobay ee la mooday inuu isku fuunti dhisay alla laakiin waa u xiisay xamar weyne goorma ugu dambaysay waxaan ku jeclahay dhibaato la'aanta iyo dadka degan oo ah reer magaal aan dhibaato lahayn oo ilbax ah habeenkii saqda dhexe ayaad meeshii aad doonto aadi kartaa cabsi la'aan waxay is hortaagtay sar weyn oo la moodo inuu rinjigii iyo nuuradiiba mar hore roob ka mayray waxay kor u raacday jaranjar dheer oo dhinacyada ka ilka dhacsatay dabaqa saddexaad markay joogtay ayay albaab furan gargaraacday Manafai oo dadka daaradda fadhiya ka mid ahayd ayaa durbadiiba ishaqac ku siisay intay soo booday bay farxad kala hortimid wey sahra ii waran abbaaye yaa kaa roon maanta waaba soo dheeraatee waa laysdhunkaday si diiran bay u soo dhoweysay qolkii Manafai ayaa la fadhiistay sheeko dheer baa la galay sahra mar kasta waxay ku dadaalaysay sidii ay majaraha sheekada ugu soo duwi lahayd meel uu ka furmi karo irid doqon magarata ah oo ay ka gasho arrinkii ay xamar weyne u timi ugu dambayntii iridkii bay heshay waxay furtay baabka dhallinyarada iyo jacaylka Manafaina way la dirin dooridii wax laga sheekaysto uga xiisa badan ayaanba jirin macnaa adigu weligaa horta wax ma jeclaatay mase lagu jeclaaday sahra si macaan u weydiisay markii la soo gaaray meel ay istiri way ku habboontahay allehey ka alle ayay la soo booday si isku kalsooni ah hadda ninku jecel oo kuu dhimanaya hadduu kuu yimaado maxaad samayn lahayd waa soo dhoweyn lahaa leese waaye haddaba anigu waxaan arkay nin indhihiisa kaa jecel meel uu kuu soo marana waayey adigay ku jirtaa saad yeeli lahayd ha ismartiyeende gacmo furanaa lagu soo dhoweeyhaa see waaye maana marka ay sidaas leedahay waxay moodaysaa sahra inay la kaftamayso waxay is leedahay kaftanka sii macaani markiise sahra hadalka kaftankii ka saartay una tustay arrin dhab ah Manafai way soo geeratay intay qosolkii iyo codkii macaanaa beddeshay bay tiri abbaay ani jeceel iyo nin iyo shaqadeeda maaha sahra yuusuf siyaalo kala duwan ayay isugu dayday inay Manafai ra'yigeeda beddesho ee ay wax la qabato ninka ay ugu warrantay wuu kuu dhimanaya abbaay xataa hal mar iska arag bay ku tiri hadduu ku cajabin waayana runta u sheeg adiga no iska raalli hawdhe si uu u quusto sahra markii fikradaas u jeedinayso waxa ay is leedahay mar uun iska horkeen kadib isagaa maskaxdeeda beddeli doonee waxay ugu tilmaantay nin qaali ah oo aan noociisa la heli karin dhan kastoo laga eegaba uma ay sheegin ninka ay ka sheekaynaysaa inuu yahay injineer axmedkii ay habeen dhoweyd aragtay waxay u gashay faallo dheer oo ay jacaylka u tusayso wax aad u macaan oo aan noloshuba la'aantiis qiimo lahayn waxay uga sheekaysay dhallinyaro isjeclaatay kadibna isguursatay noloshoodiina ay noqotay farxad joogtaa waxaas oo dhammi waxa ay noqdeen halbacaad lagu lisay Manafai dhagahay ka furaysatay didma qayaxan bay isla soo taagtay sabab cadna sahra uma sheegin wanaagsanaan lahaydaa inay shaaca uga qaato kurbada ku taagan inay la socodsiiso qorshaha weyn ee ay baryahanba ku mashquulsanaayeen reer xaaji muumin iyo reer abu mukhtaar arooska afargeeska ah ee lagu hawl jiro in la isu guuriyo afarta ilma adeerta ay ka mid ka tahay Manafai uma ay sheegin in dhowr toddobaad ka hor looga naxsaday in lagu meherin doono in adeerkeed iikar abu mukhtaar walaalkeed axmedeyna la siin doono iisha oo ah da'da ka yar iikar labada oday ee walaalaha ah ayaa keli ahaantood go'aansaday in la isweydaarsado afarta carruura si loo joogteeyo wada lahaanshaha dukaamada iyo guryaha laga dhaxlay labada oday aabbahood aqalladii aroosyada waa la diyaariyey alaabtii waa la soo gaday ogeysiiskii waa la bixiyey keliya waxaa la sugayaa muddada gaaban ee ka harsan imtixaanka Manafai iyo xiritaanka dugsigeeda arrintaas maana sahra lama socodsiin sideedaba ma jecla inay xasuusato nolosha oo dhan bay ka rahdaa markay soo xasuusato sida ay arrintaasi uur ku taallo ugu tahay iyo sida ayan ugu dhiiran karin in ay ku gacansaydho qorsho waalidku soo go'aansaday
taa ka sokow arrinta sahro u soo jeedisay ugumaba muuqato mid istaahisha in xataa la sheego sabab lagu diido iyadu in ay garaysato iska daaye waxay la ahayd gaf ama fataalnimo ceeb ku ah sahro qudheeda waxay u aragtay meel ka dhac sahro ula soo bareertay habboonaan lahayd inay sahro la socodsiiso arrinta iikar iyo qorshaha arooska yaa u sheega la socodsiintaasi inay ka badbaadin lahayd dhibaato weyn oo ay ula soo gurguuranayaan maalmaha ku soo fool leh sahra haddii ay arrintaas ogaan lahayd way isku xishoon lahayd walaalkeedna waxay ku odhan lahayd oday candhuuftaada dib u liq laba gooraba sahra way isku yaxyaxday aad bay isugu yaxyaxday waxay uurgubyootay markay aragtay raadka hadalkeedii ku reebay wejiga maanafay waxay aragtay yartii oo beddelantay sheekadii iyo qosolkii goosatay indhaha ay ku soo eegaysana la moodo inay leedahay haa oo galabta sababtii iigu timidba ma waxay ahayd ruufyaannimadan su-aashaas ayay sahra ka akhrisatay indhaha maanafay markaasay bisad iskala yaraatay waxay ka shallayday warkii ay soo jeedisay iyo wixii ay maana kula hadashay waxay qoomamaysay booqashadii ay galabta ku timid xamarweyne aad bay ugu carootay walaalkeeda axmed jaamac iyo nafteedaba bal eeg imaan laawahaasi ceebta uu caawo qoorta ii geliyey aniguna tumayhiye maxaan uga yeelay wax aan shaqadeyda ahayn naagtiisana ma naqaane hadduu doono weligiisna yuu guursan ubadna dhaline sidee anigu sharaftaydii le ku soo ceshadaa waatana yartii galabta xushmadda iyo farxadda igu soo dhoweysay kalsoonidii iyo ixtiraamkii ay ii haysay dariishadday ka tuurtay khasab way iga goosan doontaa xiriirkeeda waxay ii arkaysaa qof xun alla guriga sidaa uga baxayaa ceebtayda alla maxaa ii geeyey axmedow balaaya naaga kuu doontay waa ka baqayay inuu i ceebayn doono bal sug haddaba talo maxaan ku maslaxaa yarta kaalay canugtan oo ciyaal maamada ah oo aan cir iyo dhulba kala aqoon miyaad ka caqli badin weyday sahra dhowr ilbiriqsi bay isla hadalkaas ku sii jeeday waxay baadigoobaysay xeelad ay ku soo ceshato kalsoonidii maanafay fikrad baa kadis ahaan ugu soo dhacday fikraddii baa aad u xajabisay farxaddii ka duushay baa wejigeeda ku soo noqotay intay qosol dheer oo lama filaana ku dhufatay oo maana bawdada ka dharbaaxday dayma xiisa leh oo qosol wadatana ku jalleecday bay ku tiri maanafay may ku dhaheen galabta waa kaa raacayay maanahaye maana oo aan qosolkii uga dayan qalbigeedase riyaaq aan badnayn soo galay ayaa tidhi maxaa jirana riwaayad fiican baan kuu dhigay maahino see camal waxaan kuu sameeyey nin boqor ah dabci wanaagsan dhallinyaro ah lacag badan leh jago wanaagsan haysta daktoor ah intay codkii si isyeelyeel ah qalbiga uga soo saartay bay u raacisay jacaylkaagana u dhimanaya adleemaa ii samaysay mise waa ninkoo oo run ah intay qosolkii dheeraa ku celisay oo maana garabka shishe soo qabatay bay tiri iyadoo sidii ilmo yar oo la koolkoolinayo u ruxruxaysa una soo dhoweynaysa miskiin maana caddeey intay ruxruxdii ka daysay ee wejigeeda toos u fiirisay bay u raacisay ma u malaynaysaa adduunkan maanta la joogo in laga heli karo nin tilmaamahaas oo dhan ay ku dhan yihiin oo wax dhaliilana aan lahayn ani maxaan ka ogahay allee warka ma keenino bay tiri maana iyadoo kala garan la wax ay ka rumaysato iyo waxay ka beensato adiga laakiin waxaa la rabay inaad tidhaahdid kaalay malaa'ig miyaa ninkan oo isku darsaday sifooyinka cajiibka ah ee aad sheegayso xaggee lagu arkay bani aadan aan nusqaan lahayn maxaa sidaa ii dhihi weyday hadda been waaye miyaa daabacan waa kula kaftamayey maanafay oo aan weli qalbigeeda shakigii ka bixin qosolkiisa lagu daartay oo wejigeeda furfuraani soo gashay ayaa tidhi ad laakiin si aad ku keentay in oo been ii sheegtid sahra intay kursigii dib isugu kala bixisay ayay bilowday inay maanafay filin cusub u saarto waxaan ku yidhi xalay baan filin hindi a galay kowdhe marka atooraha aad buu u jeclaanayaa atrijada iyaduna mooga marka dambaa atrijada looga sheekaynayaa inuu ninkaas jecel yahay laakiinse uu ka cabsanaayo way diidaysaa waxaa la dhahayaa naahoy yaa nabsi ku helin iyadna maxay dhahaysaa maanaa filinkii u riyaaqday waa diidaysaa wiilka si xun bay uga jajabinaysaa laakiin marka dambe nabsigii baa helaya iyadii baa soo jeclaanaysa isaga oo naag kala guursaday markaasay gabadhii dhibaato badan la kulmaysaa waxay ka shallaynaysaa diidmadii ay markii hore diiday wiilka jecel
asna weli wuu jecel yahay maahino maya isaga jacaylkeedii waa ka baaba'ay bax buu ku dhahaya miskiin ihi dambe maa jirtahe xariifadan waa u dhammaanaysaa alloora atarijada adigay ku eg tahay no quruxleey waaye adiga camal mahadsani maanaa tiri haddaba markaan ku arkay baan filinkii soo xasuustay waxa ay gashay inaan kaaga sheekeeyo filinkaas haddana waxaan is idhi bal horta tijaabi maana waxay samayn lahayd haddii ay gabadhaas meesheeda joogi lahayd hadda waan ku arkay atarijadaas camalaa tahay markay halkaas maraysay bay sahra intay si xiise leh maana u fiirisay oo dharbaaxa yar oo ciyaar ah ku dhufatay iyadoo qoslaysa u raacisay qalbi dhagax aad tahay maana ma naxaysid haye maana intay markeeda qosol macaan ku dhufatay dharbaaxadiina tu la mida uga jawaabtay ayay tiri aar adiga sahra may ku dhaheen aad khabrigaaga maqud maayo sahra aad bay u qososhay maanana way la jiibisay waxay moodaysaa inay ku qoslayso kaftankeeda yaa u sheega inay iyadu isu qoslayso inay isu hambalyaynayso inay isugu hambalyaynayso indhasarcaadinta ay ku guulaysatay goolka ay dhalisay godka ay ka baxday gabadha ay ka caqli badisay hortii waxay u mintidaysay sidii ay mar godka uga bixi lahayd ee sharafteedii u soo ceshan lahayd haddase markay taas ku guulaysatay fikrad kalaa ku soo dhacday farxaddii baa yidiidilo cusub ku dhalisay waxay dib u haweysatay in ayan sahalkaas uga harin hawshii weynayd ee ay halkan u timid in ayan guuldarradaas kula noqon walaalkeedii ay ballanta ka soo qaaday waddooyinku mid keliya maahee tii hore haddii ay soo xirantay maa tu kale ku daydid ayay iskula hadashay afka way ka sheekaynaysaa uurkana way ka fekeraysaa ugu dambayntii fikrad cusub bay heshay waa inay horta sheekada beddeshaa markay maana is ilowdana filinka dhanka kale ugu rogtaa saxankii cusbaabay u saartay riwaayad galabtaas ii dhexdeeda raadiyaha laga sii daayey bay u ammaantay dhar mooda ah oo magaalada soo galay bay la socodsiisay barafuun armaajada u saaraabay su-aala ka weydiisay mid ka dambeeyey oo cajiib ah ayay u tilmaantay markay hiiraacdayna ka ballan qaaday inay siin doonto xabad dheeraada oo ay iyadu hayso maana farxad iyo rayrayn bay sheekooyinkaas oo idil sahra uga guraysaa sahrase markay ujeeddadeedii ka gaadhay bay intay saacadda eegtay saaxiibadeed ku tiri maana waa daahay macaaney waa baxayaa marka kowdheh maxaa inoo ballana goormaynu sarkaynaa aad lee ii imowno bay si daacadnimo ah ugu jawaabtay waa yahay macaantu laakiin jimcahan anigaa ku xasumaaya kadibse anaa ku imaan doona ha ka cabsan abbaay aan bixbixid ma la ii ogolee ma iga dhaaftido micno ma leh macaantii ma soo daahaysid haddaad doonto maalintii oo dhan iska joog habeenkii le isla cashaynanaya maqhribkii baad ii imaanaysaa markaan soo cashaynana anigaa gurigaaga ku keenaya isla fiidkiiba hayadha abbaay haye waa fiirinaa ayay hoos u tiri iyadoo fikraysa halkaa haynoo joogto qaybtii afraad ee qisadii maanafai toddobaadka dambe ayaa noo ballanna haddii eebbaha awoodda lihi u oggolaado